wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka daafurtay ololaha wacyigelinta bulshada ee diiwaangelinta waxbarashada gabdhaha waxaana ka qayb galay munaasabada qaar kamid ah mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda Jubbaland agaasimaha waaxda waxbarashada loo dhan yahay agaasimaha waxbarashada degmada Kismaayo maamulayaasha iskuulaadka degmada madax iyo mas'uuliyiin ka tirsan ururada bulshada rayidka ololahan ayaa si gaar ah diiradda lagu saarayaa xoojinta iyo sare u qaadida waxbarashada gabdhaha iyadoo laga goleeyahay barnaamijkani soo saarista gabdhaha aqoon-yahana ah oo bulshada ku soo kordhiya hal abuur cusub waxaan isla markaasi ololahani gabdhuhu ka taageerayaan dhinacyo kala duwan oo ugu horeyso dhisitaanka wacyiga iyo sidoo kale muujinta kaalintooda waxbarasho ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha waaxda waxbarashada loo dhan yahay tamaam Fariid Cabdi iyo agaasimaha waxbarashada degmada Kismaayo iyagoo sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ololahani sida aad u jeedaan boorka gadaasheeda ku sawiran aad uga jeedaanba ujeedku waa ololaha wacyigelinta diiwaangelinta waxbarashada ee gabdhaha maadaama uu halku dhigeen uu kaas maanta yahay waxaan rabaa mashruuca barnaamijka taabagelinaya waxa la dhahaa waa mashruuca GBE-ga oo aad wada ogsoon tihiin sida uu u shaqeeyo iyo waxa uu qabto waxaan rabnaa inaan isla fahamno mashruucan haddana qayb ka mid ah ayaa waxaa loo khasisay oo loo gaar yeelay in uu ka shaqeeyo gabdhaha bas inuu diiradda saaro maxaa sababtaas loo sameeyay waxay ahayd waxaa la arkay kadib tirkoob la sameeyay in mar walba uu gaab ama farqi weyn u dhaxeeyo diiwaan galka marka la fiiriyo xogta galxogeedka waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha inay aad u kala badan yihiin dabcan waa waxaynu arki karnaa marka dugsiyada tagnana saas darteed waxaa lagu fikiray in mashaariicda qaybo kamid ah gabdhaha loo gooni yeelo si markaasi loo taageero waxbarashadooda iskuuladiina loo taageero sidaas darteed mashruucan wuxuu sameeyay asaga oo si guud mashruucu iskuulo u dhisaayo fasalla macnaha u dayactiraayo yaa haddana waxaa la sameeyey isteedyada oo dhan iyo gobolka Banaadir ama Soomaaliya oo dhan si aan dhahnaba waxaa la sameeyey iskuulo fara badan in la dhiso oo gabdhaha hadda inaga deegaankeena 3 iskuul oo gabdhaha gooni u ah oo hore u dhicin ugu ah intii dowlad burburkii Soomaaliya lagu guda jiray yaa la sameeyey marka waa Afmado iyo Doobley iyo Garbaharey 3 iskuul oo waxaa loogu talagalay gabdhaha basa loo gooni yeelayo sidaas la mid ah waxaa la sameeyay oo la soo xushay dugsiyo gooni ah oo laga taageerayo inay gabdhaha wax baraan waxaa la rabaa barnaamijka inuu sidii aan u dardargelino ayadoo guud ahaan la rabo in enrollment-ga iskuulada ardayda iskuul walba bay'ada uu ku yaalo arday badan oo daadii waxbarashada gaartay oo ka maqan ay jiraan gabdhihii wiilba yaa haddana focuskeena ugu weyn maanta uu yahay gabdhaha soo xareentooda sababtoo waan ognahay muhiimadda ay gabar waxbaratay leedahay muhiimadda ay u leedahay bulshada muhiimadda ay u leedahay qoyska muhiimadda ay u leedahay qaranka muhiimadda ay u leedahay waxbarashada iyo ka qayb qaadashadeeda iyadoo intaas jirto ayaa waxaan diiradda saareynaa in ay gabdhaha soo xareentooda ee waxbarashada dugsiyada ay ahaato sida boorkeena noogu qoran diiradda koowaad ee aan saareyna sana dugsiyeedkan hadduu alla ibno insha allah gabdhaha waxaa la dhahaa gabar waxbaratay waa qaran waxbartay sababtoo gabadha bulsho badan baa ku xiran waa waxa keliya waddankeena tusaale loo soo qaadan karo waagu burburka u dhacay 90% qoysaska Soomaaliyeed waxay ku badbaadeen waxay ahaadeen hooyooyin ay ahaayeen muhiimadda ay gabdhaha leeyihiin waan ognahay sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulaadka degmada iyo xubno ka socday bahda bulshada rayidka 16 aan xasuustaa iskuulaadka magaalada ama maamulayaasha u tagi jiray hal qolna si aan ku dhigdhigno islaamaha aan wax ugu barno ama gabdhaha si ay u yaraan bal ee alifbeetada iyo u fahmaan xisaabaadka maanta farxad gooni ah dareemaya oo dadka kala dareemayeen in mashruuci asaga ahaa wasaarad wasiiro iyo xildhibaanaba ay u wada ololeynayaan ilaahay baana ku mahadsan inaan maanta heerkaas soo gaarno inta badan waxaa jirta gabdho badan oo muxuu ahaa iskuulada dhigto
in waalidiintooda ay uga maarmi waayaan shaqada guriga sidaa daraaddeedna ay muxuu ahaa iskuulladii ka reebaan oo shaqadii guriga ay qabato oo gurigii ay ka shaqayso taasna waxay keentaa in gabdhaha ay ka haraan waxbarashadii oo muxuu ahaa ay gurigii joogaan oo gurigii ay ka shaqeeyaan sidoo kale waxaa jiro muxuu ahaa xagga guurka oo kale gabdhaha ayagoo daayaro lagu guursado ayagana taasna waxay keentaa in oo muxuu ahaa dhow uu ka reebo ninkii inay waxbarashadii galaan oo muxuu ahaa waxbarashadii ay sii wataan oo ama gabadhiiba ay sii wadan weyso oo ay dhacdo markii gabadha uur yeelato ama ay cuslaato inay waxbarashadii ka harto oo muxuu ahaa gabar uur la iskuul dhiganayso inta badan waxaa waaye iskuullada waxay ku tahay waxyaabo ku cusub marka sidaa daraaddeed ay ka harto gabadhii xagga waxbarashadii iyo muxuu ahaa macallimiin gabdha ah oo ay ku daydaan gabdhaha oo aanay jirin inta badan inkastoo hadda sanadkan ay jirto 38 gabdhood oo macallimiin federaal ah oo la qaatay oo ku soo biiraya waxbarashada haddana waxay ahayd waxyaabaha inta badan dhibaatada caqabadaha ku hay sidoo kale musqulaha iskuullada oo mararka qaarkood ay dhacdo in gabdhaha iyo wiilasha ay musqulo isla isticmaalaan taasna ay keento caqabad oo kale oo muxuu ahaa in gabdhihii muxuu ahaa ay iskuulka kaga haraan sidoo kale waxaa jiro space gabdhaha ay ku labisaan oo iskuullada aanan lahayn oo inta badan iskuullada ay ku yaryihiin iskuulla yar keliya ay leeyihiin in muxuu ahaa gabdhaha inta badan muxuu ahaa gabdho kale oo ay ku daydaan oo waxooda u sheegtaan arrimahooda u sheegtaanna aan inta badan iskuullada laga helin waxaan kaloo jirto gabdhihii laftirkoodii markay secondary dhameeyaan wasaaradda waxbarashada waxaan u faa'iidaysanaynaa maanta markay dhameeyaan ma helaan fursadihii hore ee ugu sii wadi lahaayeen waxbarashadoodii duruufaha jira awgeed aan ognahay marka intaasoo dhan markay jirto waxaa wasaaradda ka codsan lahayn inay baahiyaan oo wacyigelin beeri la sameeyo oo dadka bulshada dhan la ogeysiiyo idaacadaha laga sheego iskuulladaas meelaha ay ku yaalaan si loo ogaado in yaroo kooban hadday og tahay dadka kama wadilayan anaga waxaa jirta hadda anaga shaksi ahaanteena gabdho intay waxbarashadii ay iska bixin waayeen aan caawinaa jirto haddaa ognahay iskuulkaas lacag la-aanta ah waa geen lahayn wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada Jubbaland iyo xildhibaan Shariic Cabdi Maxamed ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda iyagoo tilmaamay ahamiyadda ololahani uu leeyahay iyo doorka uu ka ciyaari karo horumarinta waxbarashada hablaha sanadihii ugu dambeeyay kaalimaha hore imtixaanka shahaadiga ka galay heer hoose iyo heer dhexe iyo heer saraba gabdhay ahaayeen marka haddii iyagiyoonan ololo loo samaynin kambeyn loo gelin ay heerkaa joogaan haddii dadku ay isku howlaan horumarintooda xagga waxbarashada waxaan isleeyahay kaalmaha ugu muhiimsan ayagaa qaadan kara gabar waxbaratay ahmiyadda ay leedahay mudnaanta qiimaha iyo sharafka ay leedahay mujtamaca ay u leedahay wax la soo koobi karo oo la sharaxi karo male qofka bini'aadanka ahna aslanba diinteena waxay leedahay ma rabtaa liibaan adduunyo macnaha inaad adduunyadu heer ka gaarto cilmi baro cilmiga marka maadiyu noqon karaa diiniyo gabdhuhu way nala dhasheen way noo dhaxeen wayna dhaleen gabdhuhu ragga naxariis ban buu hayaa ma filayo wiil ay gabar u timid ay wax ka waay ma jiro ay wax ka waynayso waxbarashada gabdhaha waa tiir muhiim ah oo horumarka bulshada u leh sida dhaqaalaha iyo mustaqbalka bulshada intaasoo gabadha muhiim bay u tahay caqabadaha marka badan ee yacni weli hortaan gabdhaha waxaa ka mid ah waxaan rabaa inaan ifino caqabadaha gabdhaha intaba hortaagan waxaa ka mid ah waa dhaqamada dhaqankeena soomaalida soo jireenka waxaa la dhihi jiray gabar rag la socota iyo gabar rag meel la fadhiisatay waan ogna waxa laga aaminsanaan jiray sidoo kaleeto saboolnimada lafteeda qayb bay ka tahay dadka in badan ma wada awoodaan inay maaragtay gabadha shaqayso waxbarasho ay gaadho dhaqaalihii fiiga looga bixinayo inay awoodo reerkaa laga yaabo waxaa kaloo jiro fikrada qaldan ee bulshada dhexdeeda ay aaminsan tahay oo gabdhuhu inaysan waxbarin karin shaqayn karin horumar gaari karin dad aaminsan baa jiro